waxaa laga soo kaxeeyay iyadoo jirto 13 sano yay la joogto holan waxay la joogtay habarteed hooyada la laltay xagee la geeyay markii hore la kaxeeyay imaaraadka Dubai la keenay hooyad aaway hooyadeed waa dhimatay waxaa dilay isay noo sheegtay habarteed soo wada oo Dubai ka xagee lagu dilay Muqdisho qasada ama wax ka qaldan dad nabiyahan aan la joogo Dubai ama wax ka qaldan daahiro ayadoo isbitaalka ku qoran yahay ay ku dhalatay iyadiyaa wixii ka shaqeynaya maxaan isbitaalka ay ku dhalatay ku shaqeynaya waa kala dhimatay sax waa soo qoraya marka barna wax oo qof oo waxna perfect ah oo wixii yaqaan qof wax aqoon nigin gabadha dadku waa ma jirmaya dadku ama dadkii meesha macnaheedu keenay kiiskan TikTok okay imo information loo ogaado qof waxa loo baahan gabadha u dhow ama qof gabadha ka warhaya maaragtay historigeeda og dhibaatada wax walba soo dhacaan dadku waxay soo qoreen waa khalad waxa telefoonka qaada inta maqnad social hada shay maxkamadan way maqlaayeen taasaba ka fududay ku dhaw maari hal mar adiga isbalaari shaashta la qaracay gabadha imaanaysa muuda ka hadlo sadaan lady si saxaab macquula nabad dhicisay makaaniki timiya wallahi dulmiga feero ka dilaaca wallahi soo sheegay waa been total min tuxali waa been soo sheegay صح دايرو gabadhan markuu ugu horeysay Netherland ay joogto markuu ugu horeysay horta hooyadeed Soomaaliya ka soo tagtay Ingiriis gabadha nin jarnaal dhal waxa la dhahaa aadan mobile muxuu u qaybsanay passport Soomaaliya watani passport diblomaasi Ingiriis ku tagtay daayro ana ku fahamsiinaa ana inta ku ogaay oo inta ugu muhiimsan ka hadlaa gabadha si sax ah inuu caawino bir safaarada horan gabadha hooyad aamino isla Britoli laakiin issue qof kasta oo ku lug yarto la soo xira anaa ka balqaa laakiin waxaan rabnaa issue wax sax ah noqdo qiilo waqaala marno maamada 1989 magaalada Muqdisho ee horta ka dhooftay maama welcome mudgal 1989 Muqdisho ka dhooftay passport diblomaasi ku dhooftay London ay tagtay markay London tagtay gabadhaan ay ku dhashay 3 bilood ay London joogtay maamadii dib ay u soo laabatay markay dib ugu soo laabatay Soomaaliya maamadii ku geeriyootay شو هل دقيقة هل سكنسي ظاهر نتاشا emergency waa isoo waxay ku tiri wac markii maamada Soomaaliya ay ku geeriyootay ayaa waxa dhacday in habaryartii ay gabadhii dib u soo celisay Netherland imaadaan Netherland 7 sano markay joogeen hadana Ingiriiska u laabteen after Ingiriiska markay tageen gabadhii dib ayaa Soomaaliya loogu soo celiyay gabadhii Soomaaliya dib markii loogu soo celiyay ninkan habaryarteed dhashaa loogu daray waqtigan waa intaas muhiimada ah qasaabadka sax ay dhowayaan midaa ku tarsan hadiiba safaaradaha oo dawladaha loo turjumayo daahir waxaa fiican inuu iyada afkeeda wax ka qoriyo si hadhow timicnaha si sax loo ugu dhidhiyo anaaba sax sheeg waa ka dadka sax ay dhowayaan meerad waa khalada lagu yiri ma ana qeyraysanaan hada boss lady waxay noo sheegtay gabadha hooyadeed bilaysa dhiman okay shushu صح فميرو gabadha laakiin way diiday maxay u diiday garaado sug abto waxay shushu gabadha ama la dhahayo dharkeeda dhar u eg ku dhooftay in Dubai la keen markii waxa waay markii Soomaaliya ay habaryarta keentay ayaa dharka ayada ay wadatay isku jooga maamada hore ay waxay u soo gadatay isku joog u eg dharkeeda gabar kale ayay u gelisay ka bacdina gabadhi kale ayay ku waday gabadhaasna waxa la geeyaa la yiri Ingiriiska lama geyn Denmark la geeshan iyo 10 kun aan laga qaatay muhiimada ugu muhiimsan waa intaas okay shushu saafir weydiinaya ay maahiri hambar iga raalaada gabadha qofka wareysanayso Ridwan maana u tagtay haddii ay Ridwan u tagtay oo YouTube ka soo muuqatay maxaa diiday ayadina qolkan daar cala soo imaato la caawiyo gabadha arrinka maalintii ay hana uu karu imaatay maalintii ay Ridwan u imaatay dadkana way cadeyn karaan
gabadha isku hadal maysan ahayn way cabsatay cabsiyaa gashay gabadha hadda hanaa gacanta ku hayso wax walbana hanaa hadda og informationka dhamana hanaa xalisay hanana wayba soo dhafto hadda holanay soo aaday maama welcome hadda intaa maqneedaa lala hadlay shuushu waa la hadashay waxay tiri cabsiya ay haysto qolkan miya maa karo seefatani miyi sokortuna way ugu kacsantaha daasmin waxay la mid tahay gabadha inay weli nairobi seef ku aheen dadkan maahiro abti uu sheekooyinka iskaga istintaan kala yaaba gabadha afkeeda ma ka dhin safe maahay abti maxaa ka qaldan gabadha waxay tiri ma imaan karo sokora ay ugu kacsan ma imaan karo tiri laakiin muhiimadda waxay tahay gabadha inay